wuxuu jawaab u yahay ama aan ka daba tegaynaa war gaaray bulshada oo si qaldan loo fahmay inaan ka saxno. ugu horreyn waxaan rabaa walaaladay aqalka aan iskula jirno qaybtii ka hadashay shalay in cadaalad aan wax lagu qaybinin marka hore inaan u sheego in uu yahay shaqada ay ka soo baxday national government-ka. annaga waxaana la dhahaa county assembly of Wajir. Wajeer dhaqaalaheeda dakhligeeda iyo hawsha Wajeer laga qabanaya ayaa masiirka iyo mandate-ka annaga uu ku egyahay ta national government-ka ka imaatay. waxaa soo qaybiyey national government-ka, waxaana oversight-ka ku samayn kara MP-ga ama member of parliament. waxaan u sheegaynaa marka maadaama ay fureen wadda in badan in laga hadlo u baahnayd, isla xisaabtan ku eehan ama lagu saleeyey populationka waddanka ka jiro oo dawladda dhaxaba ay noogu soo siidaysa dhaqaalaha iyo maxaa ay ahaydee baaxadda dhulka uu leeyahay. waxaan u sheegaynaa in maanta meesha ay farta sida goonida ugu fiiqeen ee Wajeer South ay tahay baaxadda constituency-ga kaliya ah ee Wajeer aan dhihi kara nuskeeda inuu la eg yahay. boqolkiiba dhulka markaad eegto 43 Wajeer waxay ku taallaa Wajeer South. waxaa raaco oo ah in populationka markii la raaco 2019 oo ilaa hadda maxkamad diiday aanan jirin. inaan saxaan rabaa maxkamad diiday aanan jirin ee waddanka wax lagu qaybiyo. waxaa maanta ku qoran in Wajeer South ay tahay boqolkiiba 37 populationka Wajeer yaalo, taas oo micnaheeda u dhigmato Wajeer South markii wax laga qaybsado in ay qaadato shaqaalaha 37 boqolkiiba. maanta oo ay taagan tahay waxaan leenahay boqolkiiba 4 wax ka yar malaha 300 oo shaqaale ah. waxaan u sheegaynaa marka nimanka walaaladeenna war tanna qusaysay waxay ahayd county-ga qaabkii wax u qaybsanayay, saami qaybsiga county-ga ka jiray la xisaabtankeedii in annaga ay mas'uuliyad naga saaran tahay Wajeer in cadaalad loogu shaqeeyo aan u dhaaranay. waxaan u sheegaynaa in aan rabno in aan la xisaabtanno county government-ka qaabka ay wax u shaqaalaysay, dhaqaalaha sida ay u geynayso dhulalka kale ah, ugu yaraan meelaha aan mathalno ee wararka ah waxa gaaraya aan isweydiinno xisaabtan county-ga dhaqaalihiisa sida loo qaybsanaya ah oo runtii cadaalad ku dheehan in aan u wada istaagno. in micnaha runtii ay imaatay dhaqaalihii 100 bilyan county-ga Wajeer since devolution uu bilowday ee aan dhihi karo maanta Wajeer South wax ka yar 1 bilyan ayaa tegay. aadna ka qaylisaan wax ka yar 30 beri shaqaale ah temporary-na ah soconaayo. waxaa ka cadaaladsan ka wanaagsan 5,000 ku dhowaad shaqaalaha ee permanent-ka ah in qaabka lagu shaqaaleeyay aan wax iska weydiinno, aan ku xisaabtanno, aanan si cadaalad ah u qaybsanno. arrin usbuucii hadda ahaa ay sameeyeen mise ficil aanan ku faraxsaneen ay sameeyeen qaybo ka mid ah MCA-yada aan guriga la joogno. waxaan filayaa Soomaalida waxay dhahdaa masaaran markay reerkooda oo daa reer walaal ay oo daa mise wax u tartaa. annaga MCA-yada gurigan mise aqalkan jooga haddaan nahay waxaan gabnay hawshaanagii isla xisaabtanka ahayd, oversight-ka ahayd, maaragtay ummadda aan ugu shaqayn lahayn iyo awooddii iyo codkina la siiyey. waxaan filayaa meel aanan ku habbooneen ayaay raggaan la aadeen. waxaan u sheegaynaa walaalaha annaga maanta laga bilaabo waxaa noo furmay albaab wada xisaabtan ah oo Wajeer South kelima ahane meel walba oo dulman mise xaqeeda la dulmay mise la gacmidxeeyey in ay xaqeeda hesho. ma mathalna annaga Wajeer South keli waxaan nahay rag meeshaan fadhiyo u fadhiyo reer Wajeer. shakhsi walba
wajiha county ku nool cadaaladiisa iyo xaqiisa inuu helo ayaan maaragtay meeshan u fadhinaa oo u mathalnaa marka waxaan rabnaa nin walba xaq uusan lahaynna inaan la siinin shakhsina xaq uu lahaa laga qaaday waxaan u sheegaynaa marka bulshaweynta reer Wajeer in maanta laga bilaabo annaga haddaan nahay MCA-da meeshan taagan aan u taaganahay xaqi reer Wajeer ninkii garan waayay dadkii soo doortay mas'uuliyadii ay soo dhiibteen annaga meeshan waa u taaganahay hadduu asaga gabay annaga ma gabayna marka waxaan u sheegaynaa in ummadii soo dooratay mas'uuliyadda noo dhiibatay haddii maanta aanan arkin sababihii iyo wixii meesha noolagu soo doortay aanan arkin waxaan u arkaa inay khalad tahay in howl nin kale uu leeyahay faraha la gal marka waxaan ugu baaqaynaa walaalahanaga dad waxaan nahay wada shaqeeya ehel ah wax walba isu lahaanahay waxaan ugu baaqaynaa in meel cidlo duuroon waxba naga jirin inaan aadamahane in aan iskugu imaano aan la xisaabtano dawladdii annaga nafteenan aan la xisaabtano maaragtay ummadii wax muhiim u ah mashaariic mise bills aan keenna meeshaan oon marina si ummadda annaga ay u hesho horumar iyo wixii meesha maariyaal waxaan filayaa dhaqaalaha Wajeer yaal haddii si fiican loo maamulo inuu nagu filan yahay oo maaragtay uu ku filan yahay dhan mashaariic horumarineed iyo wax walba marka waxaa kaloo u baaqaynaa laamaha ku maaragtay ku shaqale sanadka committee standing order of devolution EACC iyo shakhsi walboy maaragtay arrintan quseyso oversight-kiisa iyo mandate-ka uu siiyey sharciga Kenya in ay imaadaan si la xisaabtan dhab ugu dhaca. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. warmutiyeedkan wuxuu ku saabsan yahay press statement-kii ay bixiyeen qaar ka mid ah mudanayaasha loo soo doortay aqalkan hoos oo Wajeer inay mathalaan waxay ka caawanayeen qaabkii loo qoondeeyay shaqaalihii yaraa oo 30 beri ka yar inay u shaqeeyaan la rabay department-ka agriculture oo soo aruurin rabay data ama warbixin ground-ka xog inay deegaanada ay ka soo aruuriyaan loogu targalay waxayna sheegeen qaabka loo qaybiyay shaqaalihii soo aruurin lahaay xogtaas in ay cadaalad darro ahayd waxaan rabnaa inaan dhammaan u sheegno shacabka reer Wajeer iyo dadkii si qaldan u fahmay warbixinta raggaas ay bixiyeen waxaanu in sheegaynaa horta mashruuca asaga waa mashruuc ee maalgelinayso ay qabanayso dawladda sare national government waxayna iskaashanayaan county government of Wajir qaabkii loo qoondeeyay shaqaalaha hoose ayaa waxay ahayd census-kii hadda la qaaday 2019 population-ka iyo dhulka baaxadiisa ayagoo eegaya ayay u qaybiyeen dadkii deegaanada ka soo aruurin lahaa warbixinadaas waxaa kolkaa muuqatay oo qaabkii dawladda sare u qaybisay oo muuqatay in ay fiiro gooni ay siiyeen dhulka baaxadiisi fiiro gooni ay siiyeen dadka deegaanka degan tiradoodii fiiro gooni ay siiyeen maalmaha ee shaqadan la rabay inay lagu soo qabto oo muddada shaqadan in lagu soo qabto la rabay ka waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka maanta dawladda Kenya markii dhaqaalaha laga soo qaado oo county government of Wajir dhaqaalaha loo soo qaadayo waxaa jira 4 shay oo la fiiriyo oo koow ay ka tahay tirada dadka ama population-ka deegaanka degan in dhaqaalaha lagu soo qaado koow ay ka tahay oo ay ku xigta dhul deegaanka baaxadda dhulka intuu dhan yahay ay ku xigto oo ay ku xigto wax la yiraahdo equitable share ama haddii kala sanad lacag oo u siman countiyada kala dhammaan kolkan waxaana ugu dambeyn oo ku jirta meesha iyada ah poverty index ama haddii kala baahida deegaanka ka jirta sida dadka u kala saboolnimada dadka deegaanka ka jirto waxaanu rabnaa kolkan dadka saaxiibaday oo sheegay press conference-gaas in cadaalad darro ay meesha ka jirtay fiigas iyo data in la isticmaalo ee sax ay tahay oo 5 sano la soo dhaafay ee dawladda ay ku qaybinaysay dhaqaalaheedii halka maanta galabta waxaan isku imaanay inaan ka falcelinna MCA-da qaarkood oo meeshan maalin hore isku imaaday oo arrin ay ka bixiyeen ummadda ay been u sheegeen aan rabno inaan saxno wata mashaariicda ay ka hadleen waa dawladda sare dawladda county-ga ma aha
marka waxaan dhihi lahaa horta nimanka maartay aqalka iskula jirna war shaqada ay reer wajeer noo soo doorteen oo aan qabsana shaqa waxa dawladda national ka waxa ku shaqo leh xildhibaanada MPs ka shaqada ku leh marka hoos u soo dhaadhaca waxaan u maleynayaa ismaamulka waddankan Kenya wuxuu ka hirgelay sanadkii 2013 waxaa hadda laga joogaa waxaa la soo dhaafay 11 sano 11 sano meeshan wajeer south la dhahayo oo baaxadeedana ay tahay 22000 square kilometers oo u dhigmata boqolkiiba 38 dhulka wajeer county ku yaala maanta inay wixii gali ay noqdeen wax faraq ku tiris ah oo markii maanta la xisaabo aan ka badnayn lacag 800 milyan aan ka badnayn wajeerna waxay deeq u heshay 12 sano waxay u heshay 100 bilyan bay u heshay boqolkii bilyan waxaan ka helnay 800 milyan marka taa waxay ku tusaysaa in maartay aan lagu si cadaalad aan dhaqaalaha lagu bixinin mana wanaagsana mar walba annaka xildhibaanada la soo doortay shaqadayna in bedelkan qabsan lahayn inaan maalin walba qabiil iyo reebel aan ka hadlo waxaan u sheegi rabaa ragga walaalahey maalintii meeshan ka hadlay waxay ka hadlayaan waa wax 23 bari ah dawladda sarana waxay wax ku sareysaa oo lacagta dhaqaalaha wajeer county soo gaalaya iyo kan CDF ka kan county-ga waxa lagu saleynayaa census-ka la qabtay xisaabka la sameeyay 2019 marka haday leeyihiin 2019 wixii dhaqaalo ku soo baxay waa qalad haddii dhaqaalaha imaanaya consensus walba oo CDF ka iyo kan county-ga waa qalad markiida waxaa kaloo jirta meel la dhahayo CSG oo lagu gumaada reer wajeer south oy u matala meeshii iyada ah arrimaha donaska ee meeshii iyada lagu qaybiyo marka waxaan u sheegi rabnaa CSGska wixii ka bilowda maanta inaan wax damba oy sameeyeen aan ogolaanaynin hana noo sheegeena presskan kadib waxaan ka rabnaa CSG-ga sanadkan soo dhaafnay qaabkii ay wax ku bixiyeen ay wax ku saleeyeen wajeer hay'ado badanaa jooga waana markaad fiirisid wajeer south waxa ka gaaray hay'adahaas ay ka qayb laga siiyo boqolkiiba waa 5 marka waxaan rabnaa inaan u sheegna SG-da ee macallay county steering committee-da waxay sameeyeen in cadaalad darro tahay diyaarna aan u ahayn inaan ogolaano haddana aan ka codsanayno ugu yaraan 7 casho inay nagu siiyaan wixii ay u qaybinayaan